بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaan Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com waa request lesson ama cashar ay soo weydiiyaan qaar ka mid ah ardayda wax ka barata shabakada sologroups.com. Casharku waa how to modify a software application file sida wax looga bedelaa software-ada mar walba aan aragno ee aan ku dubno computerka applicationka ah kadibna fileka ah sida wax looga bedeli karaa. Tabcan software-ada noocyo kala duwan ayaa loo dhisaa. Marka waxaa jirta software la yiraahdo PE Explorer 1.99 oo dhexda ka gasha software-ka caloosha software-ka ayaa la yiraahdaa. Isla markaana wixii aad doontid aad ka bedeli kartid sida luqadda sawirka waxay ahaataba. Marka kuwa la bedelayo waa exe oo fileka ah iyo dynamic link library oo aan ku sameynayno modification ama waxaan ka bedelayno. Marka waa bedelidda software-ka. Marka waxaan isticmaalaynaa sida caadada ah waxaan isticmaalnaa Windows 10 oo VMware si casharkan ugu sameyno waan ku duubnay. Marka qaabka software-kan loogu duubo iyo downloadka waxaad kala soo degi kartaa shabakada sologroups.com. marka software badan ayaa isticmaalaa. Marka waxaan soo xulnay software-ka isticmaaladeeda ay ugu badan tahay shabakada sologroups.com taasoo ah WinRAR. saa la socotaan software walba oo laga download gareeyo shabakada sologroups.com waxaa fura WinRAR oo caburiya xilliga lagu duubayo fudeed ayuuna ka dhigaa. marka tan ayaan isku dayaynaa inaan waxyaaba qaarkood aan ka bedelno. ugu horreyn waan ku duubayaa waxaan isticmaalayaa oo aan ku duubaya software-ka si ula shaqeeyo 32-bit waa inaan isticmaalnaa. marka tabcan linkiga downloadka WinRAR ayaan soo diraya waa inaad isticmaashaan 32 ayaan waxaan ugu duubaynaa sidii caadada ahayd. markii aan ku duubno kadibna waxaanu samayn doonaa qaabka bedelidda exe software-ka ama DLL ama image wuxuu noqdo ayaanu bedeli karnaa. marka software walba qaabkaas ayaa ku samayn kartaa. marka waxyaalaha aan ka hadlayo la bedeli karo waxaa ka mid ah sawirkan ayaa bedeli kartaa, qoraaladan ayaa bedeli kartaa, browserkan ayaa bedeli kartaa, destination qoraalka halkan installka ayaa bedeli kartaa. marka bal aan ku duubno ugu horreyn qaabkan u socdo qoraalkan halkan ayaa bedeli kartaa, kan ayaa bedeli kartaa, wax alla waxa software ku jira ayaa bedeli kartaa. marka qaabka loo bedelin adayuu fudud yahay. marka select all ayaan leeyahay, kuwan waa bedeli kartaa, okay ayaan leeyahay. marka markii aan idhaahdo okay waxaan sameynaynaa done ayaan leeyahay. software-ka waan xirayaa, waxaan aadayaa ugu horreyn aan eegayaa meesha software-ku ku jiro kaasoo ah C-ga ayuu ku duuban yahay. C-ga waa inaan eegnaa. kadibna markii aan eegno kan waan xirayaa, C-ga ayaan furayaa. markii aan furo C-ga waxaan eegayaa program files oo 32-bit-ka ah WinRAR halkan ayuu ku duuban yahay. marka kan aan bedelayno waa kan mar walba aan ka bedeli doono waa exe. marka waxaan sameynayaa ugu horreyn waxaan furayaa software-ka oo runtii waxyaaba aad u fara badan lagu samayn karo oo wax walbana bedeli karta. laakiin waxaa muhiima qaabka loogu duubo waa in aad daawataa video la socda. haddii kale dhib ayay kugu noqonaysaa in aad fahmi kartid sida loo isticmaalo. marka kan markii aan saan u furo waxaan leeyahay file ayaan leeyahay, open ayaan leeyahay fileka. kadibna waxaan tegayaa program files hoos ayaan u degayaa WinRAR-ka ayaan furayaa iminka WinRAR kan ayaan doonaya inaan furno RAR-kan open ayaan leeyahay. marka markuu sidan u soo baxo waxyaalo badan ayaa soo baxasaa ku aragtaan. waxaanu tegaynaa halkan ayaanu tegaynaa kaasoo ah resource view editor oo bedelaya waxyaabo badan ayaa ku jira. marka software-ada walba oo aad doonaysid inaad wax ka bedeshid halkan ayay soo fadhiistaan. marka waxa ugu horreyn eegana waxay tahay bitmapka oo image ay ku jiraan. saan ayaan u furaya waxyaalo badan ayaa ku jira saa ku aragtaan. marka kii aan doonaynay 104 ayuu ku jira oo sidan ah WinRAR-kan sawirka aan bedelno. marka isaga ayaan laba jeer riixayaa. markii aan riixo waa image format-ku waa bitmap image. kan waa muhiim 261 lagu dhuftay 49 ayaad samaynaysaa image. marka wuxuu doona ha ahaado kadibna isaga ayaad ku bedelaysaa. marka isagoo sidan ah laakiin haddii aanu samayn kan magaca waxba micno yeelan maayo. magaca doonta ayaad ku save garayn kartaa laakiin kan waa inuu ahaadaa 261/49. halkan ayaan tegayaa folderka source desktopka ayaan tegayaa oo yaala image yar oo hore aan ugu aragnay si aan ugu sameyno. waxaan leeyahay hoos ayaan usoo degayaa. waxaan leeyahay sologroups logo ayaan soo qaadayaa. halkan ayuu imaanaya. markaasaa ku aragtaan 261/49 bitmap image 261/49. marka kan kale ayuu bedelayaa. okay ayaan leeyahay. iminka yes ayaan leeyahay. marka waad aragtaa kan waa ii bedelay. marka wixii aad doontid oo aad is leedahay waad ku bedeli kartaa ayaad ku samaynaysaa mar walba.
marka kadib waxaan sameynayaa iminka waxaan xirayaa bitmapka ayaan xirayaa waxa halkan yaala icon entry ayaa yaala icon ayaa ku jira marka iconada haddii aad doonto bedeli kartaa kan waa WinRAR-ka kiisa marka dhammaan iconada halkan dhisan ayay yaalaan waxaa muhiim ah menuga main menu marka haddii laba jeer aan riixo sidan ayuu noqonayaa dhanka kale haddii aan eegno meeshuu yaalay software-ka san ayaan u furayaa si aan isula eegno waxaanu samaynayno isaga ayaa laba jeer riixayaa markii aan riixo waxaa soo baxaya tabcan WinRAR-ka ayaa soo baxaya marka waxa aan ka hadlayna iminka waa kan halkan ayaan iska dhigayaa ama waxaan leeyahay minimize ayaan leeyahay kan si loo wada arko waxaanu samaynayno minimize ayaan leeyahay marka kan ayaa halkan soo dhigayaa marka waxaan ka hadlayno waa filekan sidan ah open archive change drive set default waxaan oo dhan ayaan ka hadlaynaa oo halkan ay yaalaan saa ku aragno open archive save wax walba halkan aysan u yaalaan marka kuwan waa la bedeli karaa haddii aad u baahatid extract fileka test fileka marka ugu horeyn waxaanu sameynaynaa halkan ayaan tegayaa file ayaan leeyahay haddii waxaan arkaa wax walbo halkan ku jira aan bedeli karo halkan waxaan ka bedelayaa halkan ayaan ka bedelayaa marka kan haddii saanaan yidhaahdo waxaa soo galay iyo ama and a file kaasi wuxuu kuu sheegayaa shortcut-ka isla markaana ah variable ah marka fileka meeshuu ka yahay file uu yahay Soomaali haddaan ka dhigo waxaan ka dhigayaa fileka ayaan ka dhigayaa waad aragtaa isla markii wuu isbedelay marka fileka waxaa hoos yaalla haddii aan eegno fileka open archive marka haddii aan idhaahdo kan aan tago control iyo o wuxuu noqonayaa shortcut-ka ayuu noqonaya marka haddii aan idhaahdo kan meesha ugu dambeysa aan geeyo aan idhaahdo fur arkiviyada san ayuu noqonayaa marka kan halkan oo iska bedelaya saa ku aragtaan fur arkiviyada san ayuu noqonayaa marka haddii hoosaan usoo dego halkan idhaahdo waxaan leeyahay isaga ayaan ka saarayaa waxaan leeyahay ka bax ayaan leeyahay ka bax ayaan leeyahay waxa kaloo aan ka saarayaa iidan waan ka saaraya kan ayaa ugu dambeynaya marka hoos dib u tago ka bax ayuu leeyahay halkan dhammaan xul select all ayuu noqonayaa haddii aan halkan ka xulo halkan wuxuu leeyahay select all ayaad eegaysa select group select all sidana waxaad leedahay kan ayaad ka saaraysaa kan ayaa ugu dambeeya kadibna waxaad leedahay select all ama xul af Soomaali ugu dhow dhammaan ayaan leeyahay sidan kan saan ayaan soo xirayaa kan waan soo xirayaa haddii hoosaan usoo dego waxaan ku arkayaa xul dhammaan marka kan waan isla fahnay toolska haddii aan tago kan ayaa waxaan leeyahay haddii aan isla garano mar walba waxaan leeyahay toolka ayaan leeyahay af Soomaaliga toolka ama alaabaha farshaxanka wixii ay noqdaan marka muhiimaddu waxay tahay in aan isla fahno toolkana waa kan favorite option waxa kaloo jira oo muhiim ah inaan xulano help kuwan waa separator kan help haddii aan tago waxaan leeyahay caawi sidana marka kan wuxuu ku tusayaa wax walba oo laga bedeli karo ayuu ku tusaya marka toolka haddii hoos aan usoo dego wizard ayuu kuu sheegaya tabcan af Soomaaliga aad ayuu yaryahay haddii loo eego kuwan favorite-ka optionka wax walba saan ayuu noqonay tree WinRAR commands test view file daabac print command hoose haddii aan tago wuxuu noqonayaa daabacaada command ayaan eegaya marka kaasi waa wizard separator command waa kan halkan ayuu yaallaa marka haddii aad doonto waxaad leedahay print file oo sidan ah waxaan ku qorayaa halkan mar walba adka ama and waa inuu ugu dambeeyaa daabac file oo sidan ah kadibna waxaan leeyahay kan ayaan ka saarayaa adka and waa inuu ugu dambeeya mar walba marka optionkaas wuxuu hoos yaallay waxaan filaya inuu hoos yaallay favorite-ka ama toolka ama commands iyo daabac fileka sidan uu ahaa marka dhammaan faalasha halkan ku jira adigoo halkan ka arkayaad bedelaysaa marka aad bedeshid waxaad ku samaynaysaa dabcan haddii aan xiro wuxuu weydiinayaa value has been changed ma doonaysa inaad keedisid yes ayaan leeyahay marka valuegii uu noo sameeyey uuna icaawi options favorite toolka fileka haddii anaga fur arkaabiyada wax walba adiga ayaa lagaa doonayaa in sida loogu talagalay aad u bedeshid waxaa kaloo jira halkan yaala dialogue ayaa yaala dialogue waa muhiim waa meesha ugu muhiimsan ee waxba laga bedelo gebi ahaan waxa halkan ku jira waa bedelaysaa aad ujeedaa waa designkii sida u ahaa marka haddii aan eegno about waxaan aragnaa kii aan ku bedelin halkan uu yaallo tusaale ahaan haddii aan doonayo waxaan leeyahay right click ayaan leeyahay waxaan leeyahay
edit resource ayaan leeyahay sana ayuu igu soo saaraya markuu soo saaro 40 days trial ayuu leeyahay laba jeer haddii aan riixo halkan ayuu kusoo baxayaa waxaan ku qorayaa ma dhammaado oo sidan ah halkan ayuu saan u samaynaya marka kana waa translated halkan haddii aan dhigo waxaa translation ku sameeyey aan idhaahdo ama sameeyey Ilyas halkan wuxuu ka bilaabanayaa sanadka ilaa iyo sanadku ku dhamaado haddii aan ka bilaabo sanadka waxaan ka bilaabayaa 1900 waxaan ka bilaabayaa 2014 ilaa kan waa variable saa ku aragtaan wuxuu noqonayaa waqtiga iminka la joogay noqonaya qofka qoray waa kan waa u sideynina kan waa ka saarayna uma baahnin waa jarmal sidaan ku aragno kan waan ka saaraya sanayuu noqonaya marka haddii aan doono homepage-ka waxaan leeyahay guriga shabakada ayaan leeyahay sidan kan uu isbedelaya marka wax walba aan aragno uu isbedelaya halkan wax walba aad gelisid uu isbedelaya markuu dhamaado mar walba waxaad leedahay kan waad soo qabanaysaa waxaad leedahay yes ayaad leedahay marka haddii aan ku laabto translate qofka sameeyey Ilyas ma dhamaado guriga shabakada waan aragnaa WinRAR gabi ahaan wixii aan ka bedelinsan ayaan aragnaa marka haddii kanaan eego waxaan bedeli karaa halkan browserka meeshuu yahay ayaan bedeli karaa raadi browserku kale haddaan idhaahdo right click aan idhaahdo kan aan idhaahdo right click halkan aan idhaahdo edit source browserka haddii aan riixo browser iyuu leeyahay halkan dhibacyo la sii socda saa ku aragtaan browserka waxaan leeyahay raadi ayaan leeyahay kanna wuxuu noqonayaa icaawi oo horaan usoo aragnay inta kale waan ka saarayaa waa kan uu isbedelay okayna waa okay cancel waa cancel kanna wixii aad doontid ku qoraysaa kan haddii asaan yiraahdo halkan ayuu soo gelaya aad ku qoraysaa okay try again wax walba isku qaabay u shaqeeyaa kadib waxaan leeyahay save ayaan leeyahay marka waxaa kaloo jira processka markuu saan u socdo CDM-ka ujeeda wax walba oo loogu talagalay ee ku jira saan ayuu usoo saaraya dialogue dhankiisa aad ujeedaa waa unlimited gebi ahaan waxaad ku bedeli kartaa luqadda aad doontid ama Soomaali ama luqadda kale aad doontid ku bedeli kartaa aad ujeedaa markii aad soo gaartid aad ka heshid meeshaad bedeli lahayd waxaad leedahay right click ayaad leedahay ilaa aan ka gaarno meesha ugu dambeysa oo ah info get password oo sidan ah haddii right click aan idhaahdo waxaan leeyahay mar walba edit ayaan leeyahay passwordka dusha ayaan tegayaa enter password ama password geli mar labaad geli show passwordka mar walba wuxuu ku sameynayaa isbedelka ah dhanka editorka marka aad ayuu fara badan yahay meesha ugu dambeysa ilaa uu ka gaaro dhammaan waxaan ayaad bedeli kartaa arkaysaa image haddii aad doontid waad bedeli kartaa marka saas ayuu ku soconaya ilaa meesha ugu dambeysa uu ka gaaro marka markii sanaa u dhammaysid mar walba dialogue sidan ayaa loo xiraa string waxaa loogu talagalay haddii aad taqaanid programming language noocay ahaataba haddii aad taqaanid waxaa ka bedeli kartaa haddii sanaan u furo waxaa ku jira commands kala duwan ayaa ku jira wuxuu samayn lahaa marka by the way waa lagu samayn karaa software walba waxaan ku tijaabiyey oo aad u wanaagsanaa softwarekan Ashambu la yiraahdo Burning Studio-ga ayaan wax walba ka bedelay Windows 7 Windows 8 8.1 ayaa waxaa doontid magacaaga backgroundka control panel lagu bedeli karaa luqadda afka Soomaaliga ama luqadda kale lagu bedeli karaa kan waa programming ayaa lagu talagalay waxaa kaloo yaala accelerator sidan ah isagana haddii aad doontid waa dhanka programmingka ah a variable ayaan ujeedaa kala duwan waxaa kaloo halkan yaala group cursor oo saan ah isagana 32-bit map ah group icon ayaa yaala marka iconada saan ayuu bedelaan iyagana qoraalka ayaa bedelaysaa waxaa kaloo yaala version oo muhiima marka versionka haddii saan aanu idhaahdo waxaan sameynaa right click haddaan idhaahdo edit aan idhaahdo versionka halkan ayaan ka bedelaya haddii aan doono product version saanuu yahay waxaan ku bedeli karaa waxaan dhihi karaa waa number 9 okay haddaan idhaahdo 9 ayuu isu bedelayaa marka haddii aad doontid magaca waad bedeli kartaa laakiin magaca software qof kala sameeyey muhiima baa inaad bedeshid magaca qofka sameeyna waa kan haddii aan idhaahdo 1993 ilaa iyo 2015 ayuu socdaa softwareka saan ayuu noqonayaa Alexander Rochel oo German ah isaga ayaa saan u sameeyey marka isaga ayaa loo deynayaa okay ayaa leedahay yes ayaa leedahay value-ga manifest ayaa jira haddii aan saan u riixo waxaad ku arkaysaa structureka programmingka iyo sida loo riixo iyo waxyaalaha kala duwan uu sameeyo marka wixii aad ku dari lahayd adigu may kugu xiran tahay markii uu dhammaado waxaa muhiim ah in aad keydisid ayaa loo baahan yahay kaydinta marka mar walba oo aad tagtid menuga ama dialogue-ga waxaad aadaa tusaalaha menuga halkan ayaa ugu badan oo laga bedelo waxyaabaha aa isleedahay waad bedeli kartaa oo menuga soo saara ujeeda mid walba
وسيدانا سنة يدو بدليسا مركا وان كبحيا وحان دقي هالكان السيف ايان ليهي مركا اسلا ماشي كو سيف جرين ماي وحان ليهي وحادي ديكتا ديسktop كديغا ايان ليهي سيف ايان ليهي مركا سوفت وير كي هوري كسمي ساكو ديسktop يو سو دغاي iminka waxaan leeyahay minimize ayaan leeyahay weli waxaan ku aragnaa kii originalka ahaa inuu sidan yahay kan ayaan xirayaa waxaan aadayaa dhankan ayaan aadayaa right click ayaan leeyahay waan ka tirtirayaa kan waan ka saarayaa override ma doonin inaan sameeyo ma doonin error inuu iga soo galo markii aan ka saaro uu ka baxo kan waxaan sameynayaa tabcan kan ayaan soo qaaday marka drag and drop ha sameyno waa inaad right click copy kan aad tiraahdaa sidan aad tiraahdaa right click copy aan ku sameynaa markaan ku sameyno waxaanu leenahay halkan ayaanu keenaynaa meel ka mid ah waxaan leeyahay paste ayaan leeyahay marka continue ayaad leedahay markii asaan ugu samaysidna wuxuu soo gelayaa software-kii aan sameynay oo editka aan ku sameynay waxyaabaha faraha badan aan ka bedelnay halkan ayuu soo gelayaa mar walba waxaa muhiim ah in aad desktopka si fiican ku samaysid iminka bal aan eegno laba jeer ayaan riixayaa waxaan arkaynaa ugu horeyn fileka fur archiviyada ka bax xul dhammaan waxyaalihii ama dee toolka saa ku aragtaan waxyaalahan ka beddelay command waxaan ka beddelay daabac file waa af Soomaali runtii qalifan laakiin uu shaqeynaya caawi sana ayuu yeelaa meesha ujeeda waxyaabihii oo dhan aan bedelnay sana ayuu soo gelayaan marka haddii aan idhaahdo about haddii aan idhaahdo wuxuu noqday unlimited company kan wuxuu ahaa kii aan halkan ka bedelnay guriga shabakadda tabcan siduu isu bedelay bal eg meeshan marka publish WinRAR kuwa kale waxay ahaayeen gudaha ayay ku jiraan acknowledgement markii aad tagtay ayaad arkaysaa kuwa kale kala duwan halkan aad ka bedeli kartaa marka kuwan waa la bedeli karaa kuwan gebi ahaan waa la bedeli karaa qoraaladan halkan ku yaalaan marka saas ayuu u shaqeeyaa waan runtii softwarekan limitkiisa aad ayuu u yaryahay waxyaaba badan ayaa lagu samayn karaa oo every software saa ku aragtaan maxaa lagu samayn karaa PE Explorer fileka lagu eegi karaa waa la soo qaadi karaa waa la bedeli karaa digital signature ayaa lagu dari karaa resource review ayaa lagu samayn karaa strip tools ayaa ku jira wax walba ayaa ku jira marka qaabkaas uu fudud bal tijaabo ku sameeya WinRAR-kan oo kale in wax walba ku jira ka bedeshaan backupna ku sameeysan intaadan sameyn marka waxaan filayaa casharkan yar ee qiimaha leh ee aan ku baranay sidee loo bedelaa modification lagu sameeyaa software application file oo aan ku aragnay WinRAR waxaanu isticmaalnay PE Explorer 1.99 wixii macluumaad ee casharkan iyo casharada kale mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com anigoo ah macna cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu